kulanti waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa Ancelotti oo heshiiska u kordhinay Real halkii uu ka bixi lahaa Chelsea oo qaadanaysa Aaron Ramsdale Barcelona oo suuqa dhigtay Lewandowski saxiixa ay Real ay qorsheynayso markii hore Jude Bellingham imikana waa Joe Bellingham wararka suuqa ee maanta haddii tahay markii ugu horeysay soo booqatay fadlan rukumo kambaleel kan furo saad uga mid noqoto dadka ugu horeeya warbixinta ay soo gaadho mar laba soo dhawaad saaxiibayaal haddii ka horeyna wararka suuqa saacadii ugu dambeeyay soo baxaya ee la fagurayaan wargeysida ugu waaweyn qaaradda Yurub runtii waxa aad loo qorayaa in Chelsea ay doonayso in la saxaato goolahayaha Arsenal iyo xulka Ingiriiska oo Aaron Ramsdale shilaad shirkan ay doonayso Chelsea in la saxaato haddii waxa leeyahay Chelsea maxaa ku qasbay in laacibkan ay la soo saxaato horta Ramsdale kooxda Arsenal waa ku dhibtoonaya xilli ciyaareedkii sidoo u bilaabmayba safka rasmiga ah mehelin kursiga kaydka ayuu ka caajisay goolahayahan Ingiriiska haddana Chelsea ayaa xiiseynaysa Chelsea haddaba waxa ku riixaya inay goolahayahan ay soo qaato markii la xaqiijiyay in Robert Sanchez oo ah goolahayaha Blues uu muddo u jiifi doono dhaawac jilibka ka soo gaaray dhaawac jilibka muddo inuu jiifi doono ay waxa ku riixaysaa in goolahayahan ay ka soo qaato Arsenal walow aan meesha laga saari karin wararka sheegaya inay laacibkanba ay xiiseynayso kooxda Bayern oo ay kula dagaalamso laakiin waxa la imika waxa uu janjaro u badan yahay halkaas Chelsea ay doono way Chelsea waxa ku riixayaan waa goolahayaha ka dhaawacan laacibkana waxa uu rabaa saf rasmi ah in uu saf helo haddii bedel doonayba waa si joog la Arsenal marka Chelsea inuu tagi doono ayay u baahan tahay Barcelona ayaa waxa leeyahay idan waxay doonaysaa in iibiso Robert Lewandowski 65 jirkan ayaa runtii waxay doonaysaa in iibiso Barcelona weeryahankeedana suuqa waa dhigtay waxay runtii ay doonaysaa lacagta ay laacibkan ay ku iibiso in ay u isticmaali doonto saxa khadka dhexe ee Brazilianka iyo kooxda Newcastle waninka aad kale la xidhnay kooxda Barcelona Bruno Guimaraes way doonaysaa in Barcelona ay safkeeda dhexe mushkilada ka haysato waliba ku bajoojiyaha ama si aan naqaano siiska runtii ay doonaysaa in adeegsato Bruno Guimaraes oo ana targetkeeda khadka dhexe ee ugu weyn ee kooxda Barcelona ay doonayso waxaana doonaysaa lacagta ay ka heshay Lewandowski ay ku soo bedelato ay ku isticmaasho khadka dhexe waana laacibka aad ku xiiseynayso kooxda Barcelona Real Madrid ayaa waxay runtii ay ku raajogtaa baa leeyahay markii hore waxay soo xirigelisay Jude Bellingham oo runtii wacdareeyay oo ina waalay oo goolo farabadan dhaliyay oo runtii taariikhiyo u yaalay kooxda xidiga waaweyn kooxda Real Madrid maadid jibi xitaa rikoorkii sidoo ku bilowday Cristiano Ronaldo markii ugu horeeyay maadid Real Madrid waa jibiyay hadda imika Real Madrid waxay doonaysaa oo ay ku raajogtaa baa leeyahay xidiga ay walaalahayn xidiga haddana ay sanad suuqii dhawaad la soo wareegtay Real Madrid ee Jude Bellingham oo la yiraahdo Joe Bellingham oo runtii walaalayihiin kubadsameeyaha Englandka Jude Bellingham ee runtii ay la soo wareegtay kooxda Real Madrid xagaga horna ee Real Madrid ay la soo saxatay waxay runtii ay kala soo wareegi doontaa Sunderland runtii laacibkani waxa uu ka ciyaaraa Sirobida runtii Jobe waa 18 jir waxa runtii uu ku wacdareynaya oo wacdana uu ka dhigayaa kooxda heerka labaad ee Sunderland oo ay doonayso Real Madrid ay kala soo wareegto waxaana dabacsantii baa leeyahay wararka la qorayo in 5 milyan ay kula soo saxaato laacibkan ay walaalahayn xidigii hore u joogay kooxda Real Madrid ee Jude Bellingham waxaana dabacsantaa in Real labadaas ciyaartoy walaalahaba ay soo keento kooxdani way hal goob ay ka wada ciyaaraan labadana ciyaartoy runtii waana wax macquul ah oo dhici kara hadda waxa jiray warar sheegay in suuqyada ugu dambeeyay aad loo qariyay wargeysada aad ay u baahinayeen in Real Madrid ay dabacsan tahay in ay bedesho Carlo Ancelotti oo ay jiraan tobabar fara badan oo aad loo xidhnay kooxda Real Madrid oo koob ka ahaa Xavi Alonso waxaan ka marnay warar sheegay in sanadii Zidane uu dib u soo laaban karo Real Madrid haddaba runtii iminkan waxa soo baxay war kale oo burnaya wararkii hore oo dhan oo isla saxaafadii warka hore qorisana ay hadeerna warkan ay qoriso hadda waxa leeyahay Carlo Ancelotti ee waxa uu ku dhow yahay inuu qandaraaska uu cusboonaysiiyo Real Madrid halkuu ka tagi lahaa kooxda halkii markii hore xisaabta ku jirtay inuu ka tagayo la bedelayo waxa leeyahay waxa uu ku dhow yahayba in kooxdu sii joogi doono oo sanadooyin fara badanna uu ninkan uu sii maamuli karaba Real Madrid meel ma socdaa leeyahay waxa ka fudud oo haddaba la leeyahay inuu u saxeexo ayaaba dhowba AC Milan ayaa waxay xiiso ay u qabtaa daaficii hore ee kooxda Barcelona Lenglet iyadoo xidiga reer France wuxuu la ciyaareed cajiib ah soo bandhigay intuu ka hoos ciyaaray Unai Emery runtii Aston Villa oo wacdareynaysa iyo Unai Emery
oo laacibkan qaab ciyaar cajiib oo kasoo dhigay horyaalka Premier League AC Milan ayaa ka xiiseynaysa oo doonaysa in laacibkan ay la wareegto oo doonaysa in laacibkan ay safkeeda ay ku xoojisto kadib wacdarihi uu ka dhigay horyaalka Premier League isaga iyo waliba kooxdiisaba ay sanadkan ay ugu wacdariyeen horyaalka Premier League. Hadda waxaa jira kulamo waaweyn oo maanta la ciyaari doono horyaalka Premier League kooxooyin fara badan oo ciyaari doona kooxooyin waaweyn oo foodeystari doona inkastoo xaqiiqdu tahay waxaan sheegnaawin yahay kulanka weyn ee maalinka bariya ay labada kooxood ee waaweyn ee Manchester United iyo Liverpool ay foodeystarayaan inaynu daawano. Haddana kulamo ay jira maanta la ciyaari doono oo laftigooda macquul tahay in isbedelada ka dhici kara horyaalka ayaguna ay saameyn ka yeeshaan. Waxa la ciyaari doonaa Premier League waxa la ciyaari doonaa Chelsea ayaa ciyaari doonta waxayna leedahay Sheffield United waxaynu daawan doonaa 6 kulankan Man City iyo Crystal Palace ayaguna 6 fiidnimo soo gali doona hudi Crystal Palace oo ay dirqi ka baxsatay Liverpool markana waa markeeda Manchester City kulankaas wuxuu kusoo gabagaboobay arki doonaa Newcastle United ayaduna Fulham la leh kulamada 6 la ciyaari doona soo kale waxaa jira Atletico Club iyo Atletico Madrid oo ciyaari doona horyaalka La Liga waxa kale iyaguna jiro oo meesha laga saari karin kulan weyn oo jiro horyaalka Liga Barcelona iyo Valencia ee foodeystari doona xaqiiqatan waa kulan weyn Valencia iyo waliba Barcelona ee foodeystari doona caawa 11 habeenimo runtii kulankaasna waa kulan u baahan in indhaha lagu hayo xaqiiqatan waa kulan weyn Barcelona hadda waxay ku jirtaa sanadkan kaalinta 4aad ay ku jirtaa xaqiiqatan horyaalkana waxa laga hayaa 7 dhibcood oo Girona ay ku hayso Real Madrid iyaduna ay 9 leedahay oo kaalinta 2aad ay ku jirta Atletico Madrid iyo Barca waa isku dhibco laakiin farqiga goolasha ayaa laga horeeya kooxdani Barcelona Valencia waxay ku jirtaa kaalinta 11aad halka afraadna ay ku jirto kooxda Barcelona kulankaas labadaasi kooxood ay caawada ciyaari doona xaqiiqatan waa kulan weyn oo Barca ay tahay in kulankan ay isfardaamiso waba hadii ay doonayso in horyaalka La Liga ay ku guuleysto wararkeena ciyaar wanaagta saaxiibayaal intaynu kulmi doono wararkeena kale wassalaamu calaykum